odayaal iyo madax dhaqameed ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen deegaanka Hayayaabe ee magaalada Boorama ayaa waxa ay jawaab ka bixiyeen hadallo dhawaan ka soo yeedhay qaar ka mid ah waxgarad iyo madax dhaqameed iyagu horay u sheegay dhul ay leeyihiin isla markaasina sharciyadiisa ay horay u soo bandhigeen balse waxgaradkan iyo madax dhaqameedkani ayaa iyaguna sheegay in dhulkani ay mulkiyadiisa ay leeyihiin sharciyadiisana ay haystaan waxaana ay eedo culus dusha uga tuureen qaar ka mid ah maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama waxaana ay xukuumadda dhexe ka codsadeen in arintani ay soo farageliyaan si xal waara looga gaadho ayaa waxa ay sheegeen waxaan joognaa beertayadii baan joognaa aabahay lahaa ee walaalkay Umar Shardi markii dambe dhaxalka uu siiyay halka waan ku dhashay halka imika banaanka iyaan ku dhashay sidigidaad kama tallow beerina kama tallowdo doox tanna beer kale naga sii xigta waxaan leeyahay beertaasi annaga leh waan ku dhalanay 70 sanadood baan joogay wax alla wax ciidaho aan weligii isku haysan ma jir waxa weeyaan sharcigeegii waa taa sharcigeegu waa ka sidii waxa la bixiyay 55 cashuurta la qaaday dhawaayibidka ay moodin iyo dhoobajiidiyada dhabti Booramaanahay iyo kuwan cidina dhaafin dhagdhagtii Subeerbaan iyo dhuuxa Samaru dheeldheelkii moodiyo dhalasho wata iyo intaa oo ka sii bad waxaan anagu dadkii halka ku dhashay ee Ilaahay ku abuuray waxaan la da'anahay makaahil iyaan wada dhalanay anagu Jibriil Yoonis baan ka weynaay Axmed baan ka weynaay iyaguna waxay ku leeyeen dhulka annaga balay xagee kale anagu makaayil baa ma wada lahayn dhulka oo kala qaybsan waxaan leenahay anagu cidna Ilaahay baa dhulka kale ciduu doonayana uu ku abuuray ciduu doonayana isaga ka qaadaya anagu waxaan leenahay walaalaha iyo gefka naga daayeen hadii la dagaalamayo dhagaxdaasi waa qoriyo maanta laakiin dadkan imika keenaya reerayda waxaan ku kulannay iyo waxaan isku aragnay ilaa iyo halka 75 sano waxaan ku kulannay waxaan isku aragnay midnaba ma jirtaaba yaraad aanu bana la wada cabay waxaan leeyahay anu waa daba waa dalku waa dalkii uu dadkuna waa dadkii uu caanaha la wada cabay la wada dhamayo waarnikii fidma dadka ka dhaxwaday waxbaan dililo annagu inuu wax ku dilo abkayo raali kamay umana socono umana jeedno hadii ninkii digaal iyo dilma wadow hadii dawladda toosar gaala tahay oo madaxa ka dambayso ninkii dagaal ka ridaya dawlad buu ku shaqaleeyaa taliye xigeenka qaybtu iyo maayarku kolkay imika yidhaaheen arrintaa annaga la noo xukumay beerta caynka weligeed ahaan jirtay leenahay inaan wax ku kulmanaba qolada ayna jirin markay yidhaaheen kuma aanaan qanacsanin annagu waxaan u aragnay ay yihiin rag dhanka soo jeeda oo dhan u xaqlinaya arrimaheega iyo wax walba oo safada inay yihiin baan u aragnaa annagu markaa madaxweynuhu iyo wixii ka hooseeya dhammaantood arrintaa waa inay si indho dheer u yeeshaan oo u arkaan shaarka dawladda banaadmiga dhan looga mariyo qabiil ahaan qol ahaan loogu shaqaynayo shuucan markii la bilaabay reereedal way joogeen way socotay shaqadu nin ka yimiday oo jarana oo ka yimiday ciidanka madaxtooyada oo kabtana oo laba xidigla iyo yimiday deet markiiba wuxuu yimiday buuq iyo wuxuu noo bilaabay iyo xiin annagu waxaan sideenaa sharci aan haysanaa adiguna sharcigaagi la imo deet wuxuu yiri isiga 10 cisho waan sugnay nooma keenin deet haddana dadkii meesha joogay buu caagay jugleenu bilaabay isagoo ciidan beeleed wata gobilaadar war cagta loo dhigo mashruuc horumarinta reer iyo qolo uma baahnaa hal laga wada faa'iideysto soo beer naqaana war soo wada naqaana wadadka waxa la weydiiyo oo dawladda waxa weydiiso dadka la xaganayana hal iska saadaaye dawladda ama dadka bada saabiyo ku bulaysa dadka iyo ku hal iska nabad geliyo umada Ahmed Musa Sheekh Xasan Ahmed Buuri telefishinka caalamiga ee Ariel TV magaalada Boorama